بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. horta Allah mahad iska leh haddii aan u soo dhawaado mawduuca su'aasha waxana wax cusub ma aha waa wax ay intii dalka nimankan reer galbeedka iyo gaalada iyo madowgan ay keensadeen ay haysteen laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf dhici jiray marka mid walba maalin walba ay shaqada ka cayriyaan ilaa iyaga ku shaqeeye untii baa dhacday iyagana ay isku diraan waxana hadda soo muuqato oo soo baxday inay ku khasaareen oo Mareykanku waa la socotaa oo saxaafadeedka uu ka saaray ama canaanta loo soo jeediyey ninka dalka governor ama xaakimka ka ah ee la yiraahdo Yamamoto Donald Yamamoto oo isagoo ah governorka ama xaakimka gumaysiga Soomaaliya lagu hayo laakiin magaca UN iyo reer galbeed Mareykan loo saaray dadkan lagu khalday laakiin dadka inta badan hadda ay ku balaarsan yihiin taasoo muujinaysa inay ku khasaareen dhaqaale ay ku bixiyeen Soomaaliya kuma ay bixin dhaqaale runtii laakiin waa goryadii afka loo mariyay subaga marka waxaad untay neefka cuntay oo kala weyn oo waxaasi magaca Soomaaliyeed baa lagu cunaa laakiin khamrada iyo tigidhada iyo diyaaradaha iyo xumaanta uu ninka UN-ta ama Mareykanka Soomaaliya wakiilka kharashaadka uu galo ayaa Soomaaliya la saaraa iyagana xoogaa tigidha waa laga baxshaa xoogaana jeebkooda loogu ridaa waa dhaqaalaha lagu nala sheeganayo leeyahay Soomaaliya ayaa lagu baxshay marka wixii dhici jiray unba ka mid tahay wayna dhici doonaan dalka intay nimankan haystaan oo Soomaaliya gumaysiga ay ku jirto waa tahay xasan cali khayre markii baarlamaanku ay ka tuureen xilka waxa uu qabtay shir jaraa'id waxa uu sheegay inuu iscasilay isla markaana uu Soomaalida u yahay tusaale waxaad og tahay in hortii ay iscasileen ra'iisul wasaareyaal uu ka mid ahaa Cali Maxamed Geedi markii xabashidu ay amreen uu ka mid ahaa xataa Farmaajo Cabdiweli Sheekh iyo kuwa kale marka muxuu ula jeedaa ama aad ku fasiri kartaa ereyga ah waxaan ahay tusaale horta waa iscasile waa iska hadal nafla caari oo madax loo saaro lama isma casileen haddii tiistaan isma casileen waa la cayrshay marka tusaalaha uu anugu aan u malaynaya inay waxa weeyaan waa ninkii ugu qiimaha iyo waqtiga yaraa ee la casilo hadda ka hor baa nin oday Soomaaliyeed baa nin wuxuu ku dhiftay dadka dexda degaa ilaa xeebaha wuxuu ku dhiftay ul yar markaasuu ninkii dhintay markaasuu ilaa aryaa dilif dhowaa madooliya diyow bay geshee marka ninkani waa ninkii ugu raqiisnaayo ugu sahlanaa oo si sahlan loo casilay oo aan mooshin iyo dood iyo waqti iyo daafacad iyo kuwa kale xoogaa maalmo iyo saacado iyo waqtiyo kharash ba xataa ku bixi jiray iyo laaluush caynkaas sida aan tuunsannahay laakiin waxba kuma bixin waa the least time and cost baa ingiriiska waqti yar iyo kharash yar taasuu marka tusaale u yahay suldaane markaan si toosa u eegno sababta xilka qaadista khayre ama isku dhaca isaga iyo Farmaajo waxa uu banaanka u soo baxay markii uu soo idlaaday shirkii magaalada Dhuusamareeb maxaa la isku qabtay horta nimankan niman is yaqaanay oo campaign siyaasadeed ama lo siyaasad soo galay maaha ama asxaabka yimi waa ninba meel laga keenay waan is aqoon oo nimankan dalka haysta ay isu keeneen oo iyagu ka taliyeen oo ka Mareykanka watay inkastoo magaca Soomaaliya lagu doortay oo la leeyahay Soomaaliya dooratay oo ma afka nolol marinayo dufanka beenta ah Soomaalina ma dooran mana dooran rag corruption iyo laaluushi waxaan ku soo baxay unbaa afka loo mariyay Soomaalina aan matay laakiin magacii loo arko ninna European-ka wato reer Scandinavia anaga halkan jaamacad ka wadiga jirnay oo joognay ragaan aad ugu fiicnaa waa iyo ninkaas waa ninka Norway ka yimid Xasan Cali Khayre maarif baan nahay waadu jaacada dhigan jiray ayaan maalin muxaadaro u jeediyay say rag ugu jiro oo aan kala hadlay xagga dhaqanka isagii wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Cabdifataax Cumar Usmaan waragan saaxiibaan runtii naqaanay laakiin dee isku aaraa iyo isku aragti midna mani nima saas u yaqaan ma oo soo shaqeeyo ma ayaan ahayn marka nin walbana hadaf uu leeyahay waxyaalo badan oo aan saxayn bay Soomaalidu sheegtaayo waa seediyaal iyo waa xala Soomaalidu waa isku taagto Soomaaliland baa seediyaal iyo abtiya adeerso wax qiimaha ma samayso labada gabdhood ay kala qabaan baa labada qoys ay kala sheekaysan wax macnaha ma samayso ismana dhawaad seedil lama oran kare gabar Soomaaliyeed uu qabaa kana gabar Soomaaliyeed buu qabaa marka isma geen siyaasad iyo jacayl ay shaqaaneen iyo hadaf ay ka midaysnaayeen kuma la yimaado madax Soomaaliyeed caynkaas waa dad la soo keeno oo aan marka nin walba hadaf uu watay nin walba himse siyaasadeed baa ku jira marka ogaa hadalka Farmaajo Khayre waa ka reer magaalsan yahay Farmaajo waana ka waxaan dhahan flexibility-ga kaga dhow yahay waa nin galgal badan oo saaxiib badan oo reer magaalo oo shaactiro badan oo xarago badan oo
run iyo beento ay u kala soconayno isagu meeshaad u malaysa inuu xoogaa si dhaqaale u joogo kana xoogaa waxaad u malaysaa nin iska xiran oo aan war hayn xaaladdan aad ula socon la taliyaal xunna leh isdhexgalkiisa iyo dada dhaqankiisuna ayan badnayn baan u malaynaya inuu yahay maskaxaanna un waxbaa un aniga cilad baa jirtaan dareensanahay ama walihaad ama doqonnimaate taan dareemayo ama la taliyaashiisa xun marka laba aragtiday kala qabaan ninkan wuxuu qabaa in laysdaad raaciyo waxa jira oo ah waxay dadka badan rabaan kuwan gobolladu kuwan siyaasiyiintu isla mid loo cad marka munaafiq ma aha farmaajo runtii markaad soo egto wixii uu ka sheegay dhuusamaraan buu sheegay waxaana u soo baxday ninkan inuu dheber jebiyey oo raggii la dagaalamayay oo ninkan maamul goboleeda weliba puntland iyo jubbaland ayaa waxay ku hayeen dakli siyaasiya maadaama kuwa kale isagu gacanta ku hayay qaarna uu qayb ka ah inuu farmaajo dhisay la tuulsan yahay laakiin aan kaa dhexgala iyadoo khilafoosaad uu ka dhex jiro xasan cali khayre iyo farmaajo haddana shirkii dhuusamareeb waxay isku muujinayeen dad wada socda waxaa taa ka sii daran ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu isaguna daba taagnaa oo uu jallaafeynayo khayre isagoo la safan farmaajo maxaa heerka intaas la eg gaarsiiyey bay kula tahay madaxda dowladda federaalka ah waa saasoo dee waan ku waday waxa weeyaan ninkan maadaama uu nin reer magaalka galgal badan yahay daad raacin buu bilaabay wuxuu arkay xisbiyadii mucaaradka iyo qolyihii goboladuba inay diidan yihiin marka halkaas inuu waxa la yidhaahdo bias ama garabsiin ayuu ka bilaabay waa tala isku dirtay sababta wuxuu arkay ninkan inuu shaksiga dumi karo aynan soconayn waxa la yidhahdo qof iyo cod oo dee taasi weligeedba dhici mayso sababta dalka iyagu ma haystaan dalka niman kale ayaa xukuma marka laga reebo jidka ay maraan oo lagu qarxiyo iyo fila soomaaliya marka saa la adligeed way muuqatay inuu xagga ku janjeeriyey oo yidhi dee dabkii baxaya dab lagu qaatay nimankana un guulaysan doone xagga u janjeerso inuu sameeyey way muuqatay oo way dhacday oo dee shirarkii bay ka dhacday laakiin khayri mid baa ka maqnaydo nin uu la dagaalamay oo xagaldaaciyey oo uu docfuruur ku sameeyey oo uu layn ku furay oo uu garabkiisa ka baxay inuu sii aamino ama inuusan inqilaab ku samaynayn ama uusan la dagaalamayn baa isagana ka hoos baxday oo wadaad baa ku jira isna xagga ah dhaqankiisa aad baa la socotahay waa in aad u xaraga badan oo show off badan oo runtii beentuna ay u kala socneen saan tilmaamay marka saa la adligeed waxaad u malaynaysaa in ay gardaradu ay khayra ka timi sababto ah waxa iska ogaayeen buu ka baxay xaqiiqo jirta wey waayahay markaan eegno farmaajo dhankiisa muxuu samayn karayaa bay kula tahay dad baa waxay leeyihiin markan wuxuu helay fursaddii uu wakhtiga ku darsan lahaa dad kale waxay qabaan aragti ka duwan dhankaaga iyo xogogaalnimadaada maxaa xigi kara xilka qaadistii khayre daniyow farmaajo waxaad u malaysaa sheeko yar baan kaaga sheekeynaya waa hadda ka hor baan waxaan ka akhriyay meel nin oday baa ii sheegay oo filan yar buu firsay wuxuu igu yidhi qolo baadiriyiin oo reer oo caddaan ayaa afrika la geeyey tuulo ku taalla kaniisada abu dadka marka u heesti la diin maayaan heestu bay ku hayaan marka wiili gabar yarna waa dhaleen wiil gabadha iskuul baa la geeyey tuuladu leedahay oo gabar madow macallin ka tahay tuulada iskuulka waxa u dhexeeya tog ama doox laga gudbo subaxii galabtii laga soo gudbo xaggaasa carruurta qada iyo ku cunaan oo casarkii bay soo noqdaan marka ay subaxii marayaan libax baa dooxa ka qayliyo cabsida wiilka iyo gabadha caddaanka ay ku gudbaan maadaama madowgu ay barteen iyagu oo deegaankoodii yahay laakiin qolada caddaanka deegaanka ku cusbay markii xagga tagaanna gabadha macalimadda waxay ka sheekaysaa nuclearka caalamka maraykanku waxay haystaa 100 madax ama waxa la yidhaha nuclear stocks oo madax ruushku waxay haystaa 200 shiinuhu waxay haystaa 50 wax aynkaasi ka sheekaysaa oo aan meeshaba ool maalintan wuxuu ku yidhi wiilkiiraa macalimaddii you are in the middle of nowhere macnaha kelmadda ingiriis maxay tahay adigu waxaad ku sugan tahay meelaan jirin ha ka sheekayn madaxyadan maraykanka iyo ingiriiska iyo ruushku haystaa nuclearka oo aanan aqoon inay sax yihiin kale ama ayna hubinin libaxan cabsida noo keenay maalin walba aan gudbo weynay galabtii subaxii baad xagga gaadhaan oo aad argagax aan ku jirno xal laga gaaro kanaana howlane marka gabadha wuxuu tusayay meel cidlaa inay jafayso waxaan sheekada ay ka sheekeynayso marka farmaajo waxaad malaysaa wuxuu la mid yahay gabadha sababtoo ah ma fahamsana meesha uu ku fadhiyo iyo cidda dhidabada u haysa iyo taangiyada uu ku fadhiyo iyo cidda dhaqaalahaysa iyo saacadday ka tagaan wuxuu ku sugnaan karo marka nin noocaasa wey waxaad malaysaa isma lahaa dowlad soomaaliya isagoo madax ka yahay oo sidii macallinkii maxamed siyaad barre oo kale oo awood dalka haystayo dowlad ka dambe soomaaliya ma jirin isaga siyaad barre wixiina abiga wixii didanba nooc kasta ahaatee dowlad dalka dhex xukuntabe afrikana daqdi gelisay
weliba xabashada iyo kenya dalalkan cadowga deriska marka nin noocaasa weeye marka hadda waxaad u muuqata qolada keentay inay ka tashanayso oo aan u malaynayo in Yamamoto governorka ama xaakimka gobolka ama dalka uu magaalada u keeni doono iska dhihi doono sida Cabdullaahi loo galay oo habartii Jindai Fraser ay u gashay oo tiri adeer airportka Nairobi oo iska waxaan rabnaa soconaya waxaad uga socon maysay marka tii un bay ku damaynaysaa waxa hadda magacaabo rasaara macna keenayana ma jiro doorasho cod u leeyahayna ma dhacayso fakto ahaan xaqiiqna ma dhacayso dajuurana dalka ma xukumo oo tiyaatarka bool ma dhigi karo ama sanduuq oo ku dhegan madaxtooyada marka saasay u muuqataa qofkii caqlina u arkay laakiin dee wixii jacayla oo qofkii wax iska jeceli dad Soomaalidu jacayl ama qabiil ama dambe ku dhisan tahay waa laga faalloon karaa oo dad caynka u fikiraya wejian laakiin siyaasadu saasay u muuqataa ugu dambayntii kolley xilka qaadista khayre waxay saameyn ku yeelatay shirkii magaalada dhuusamareeb iyo sii ambaqaadistiisa waxyaabihii ka soo baxay durbadiiba waxaa xilka qaadistaasi dhaleeceeyey hogaamiyaal uu ka mid yahay kan puntland Saciid Cabdullaahi Deni weliba wuxuu si cad ugu dacwooday ama uu u qayladhaamiyey beesha caalamka qolyahan beesha caalamka la yiraahdo Mareykanku ugu horeeyana waatay muujiyeen inay ka soo horjeedaan xilka qaadista oo qaswadayaal ay ku tilmaameen baarlamaanka ma dhab bay ka tahay Mareykanka mise way laba wajiileynayaan maxaad si ka oranaysaa hadalka Deni maya Saciid Cabdullaahi Deni ma aha dawladda Soomaaliyeed maxay noo qaban kartaa kaliya waa inay isweydiiyaan annaguna dadka Soomaaliyeed maxaan ku tari karnaa maadaama aan taariikhdaas leenahay And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.